Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waan salaam asxaabe magacaygu waa Yuusuf waxaan ka imid dalka Morocco da'daydu waa 23 sano inta badan waqtigayga waxaan ku qaatay guriga sababtoo ah waalidkay waxay maleeyaan inaan walanahay waxaan idin noqonayaa dib si aad u fahantaan sababta ay waalidiintay u dhahaan waa waalan tahay arinta waxay bilaabatay 5 sano ka hor markaas oo anigu dhiganayay fasalkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ilaahay mahadiisna waa dhameeyay dadaal dheer kadib aniga iyo labadeeda saaxiib ee lagu kala magacaabo Ashraf iyo Maxamed oo aan u arko walaalahay dhabta ah kadib aniga iyo asxaabteyda waxaan go'aansanay inaan safar yar aadno si aan u soo nasanno aniga iyo asxaabteyda waxaan ahayn dhalinyaro xiisaysa safarka baadiyaha sidaa daraadeed fasixi xagaaga fursad aan ku aadi karno baadiyaha aniga iyo asxaabteyda waxaan muddo dheer ka fikiraynay halkaan aadayno ugu dambeyntii waxaan go'aansanay inaan aadno keeno dhow magaalada la yiraahdo Rabat waxaan isla qaadanay oo aan go'aansanay in qof walba lacag xogaaya diyaarsado dhanka kale aabaha Ashraf wuxuu noo ogolaaday inaan qaadano gaarigiisa aniga asxaabteyda markii aan wax walba soo iibsanay anigu waxaan la ballamay Ashraf in subaxdii iga qaado xaafadeyda subaxdii markii la gaaray hooyaday ayaa soo toostay si ay ii sugootiso wayna dhunkatay waxayna igu tiri wiilkaygiiyo isilaali sidoo kale waxay la hadashay saaxiibkay Ashraf waxayna ku tiri Ashraf oo gaariga si tartiib ah u kaxee markii aan soo qaadnay Maxamed waxaan isla markiiba bilownay qorsheynta safarkeena waxaan go'aansanay inaan gaariga uga tagno meel parking ah oo aan lug ku galno keynta markii aan soo gaarnay magaalada Rabat ayaan ka quraacnay maqaayad yar dabadeedna waxaan u gudubnay xero dalxiis si aan gaariga meesha u dhigano intii aan halkaas joognay waxaan ogaanay nin la yiraahdo Saciid oo si fiican u yaqaan keynta kadibna waxaan helay nambarkiisa waxaana la xiriirnay Saciid wuxuuna yimi nus saac kadib Saciid ayaana ahaa wiil ay da'diisu tahay qiyaas ahaantii 25 ilaa 24 kadib aniga Saciid ayaa ku heshiinay qiimaha uu keynta nagu kala barayo kadibna wuxuu nagu hogaamiyay gudaha keynta maalintii ugu horeysay ee aan galno keynta waxay ahayd mid la yaab leh Saciidna wuxuu ahaa nin qosol badan si fudud ayuuna noola qabsaday wuxuuna tusay goobo dad badan aysan aqoon habeenkii markii la gaaray waxaan shidanay dab waxaan go'aansanay inaan ka sheekeysano sheekooyin cabsi ah markii Saciid la gaaray ayaa Saciid wuxuu bilaabay sheeko uu sheegay inay tahay mid dab ah oo aan ahayn mid mala awaal ah sheekaduna waxay ku saabsanay qabuuro ku yaala gudaha keynta waxaana la sheegay in qof walba oo u dhawaada qabuurahaas uu waasho sababo la xiriira waxyaabo aysan fahmi karin maskaxda bini'aadamka waxa kale oo inoo sheegay Saciid bishii 6 markii la gaaro inay soo baxaan naago qurux badan oo dadka geysta qabuurahaas markii Saciid dhameeyay sheekadaas waan ku qoslay sababtoo ah waxay ila ahayd sheeko been ah oo mala awaal ah laakiin wax walba waxay isbedeleen maalintii dambe markii la gaaray waxaan qorsheynay aniga iyo asxaabteyda inaan tagno meel lagu dabaasho saacadu markay ahayd 8 duhurnimo inagoo dabaalanayna ayaa waxa si lama filaan ah u yimi ceeriyaamo aad u daran taasoo nagu kaliftay inaan waxba arkin si lama filaan ah ayaan ku kala lunay aniga iyo asxaabteyda markii aan waayay asxaabteyda waan qayliyay laakiin Saciidna iimaysan jawaabin waqtigaas waxaan xasuustay sheekadii Saciid uu inooga sheekeynayay xalay aniga iyo asxaabteyda anigana waxay gashay baqdin weyn kadibna waxaan isku dayay inaan isticmaalo mobilkayga balse internetka iyo ateeno midna iimaysan shaqeynayn si kadis ah ayaan waxa u dareemay gacan la saaray garabkayga aniguna waan argagaxay markii aan fiiriyayna waxaan arkay gabar aad u qurux badan waxaan weydiisay waxa aan halkan ka sameynayo waxaan u sheegay inaan lumay asxaabteydana aan waayay waxay igu tiri waan arkay ee isoo raac asxaabtaada aniga ayaa ku keenayay markii aan hadalkeeda maqlay waxaan soo xasuustay sheekadii uu iga sheekeynayay Saciid laakiinse waxaan go'aansaday inaan iska iloobo sheekadaas kadibna waxaan raacay gabadhii